runtu waxaan dawadayaal dumarka wararka wargeyska Maalinlaha Jubba waxa kamid ah baarlamaanka Turkiga ayaa maanta ansixiyay mooshin ku aadan muddo kordhin hal sano oo loo sameeyay ciidamada badda Turkiga ee gacanka cadmeed iyo xeebaha Soomaaliya. Mooshinkan ayaa ujeedkiisu markii hore waxa uu ahaa in la qaado howlgal ka dhan ah kooxaha burcadbadeedka kadib markii go'aanka ka soo baxay golaha amniga qaramada midoobay. Baarlamaanka Turkiga ayaa 10 February sanadkii 2009 ogolaaday in ciidamada Turkiga ay gobolka ka shaqeeyaan muddo hal sano ah, balse howlgalka ayaa muddo kordhin loo sameeyay muddo 13 jeer. dowladda Turkiga ayaa u muuqata inay muhiimad gaar ah siinayso horumarinta iskaashiga caalamiga ah ee la dagaalanka burcadbadeedka. mooshinka la ansixiyay ayaa lagu sheegay in Turkiga uu bilowgii horeba taageerayay isla markaana ka qayb qaatay howlaha ka dhaxeeya qaramada midoobay, NATO, Yurub iyo ururka badaha caalamiga ah. howlgalka uu wada Turkiga ayaa lagu macneeyay mid wax badan ka qaban kara dhibaatooyinka ka dhaca gacanka cadmeed oo u dhow dalka Yemen iyo marinka Bab al-Mandab oo ah marinka afraad ee ugu weyn adduunka. waxaana xusid mudan in howlgalka uu yahay mid ku fidsan biyaha cadmeed iyo kanaca Soomaaliya. dhanka kale taliska ciidamada Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inay dhex ka qabteen doon lagu soo raray hub sharci darro ah taasoo ku soo wajahneed xeebaha dalka Soomaaliya. doonidan ayaa siday hub ka badan 200,000 oo qoryaha nooca doondooriga u dhaca ayaa lagu qabtay biyaha u dhaxeeya dalka Yemen iyo Iran. sida uu Mareykanku sheegay waxa la doonayay in la isugu geeyo xeebaha Soomaaliya si buu yiri looga iibiyo kooxaha al-Shabaab iyo Daesh oo dagaalka ka wada gudaha Soomaaliya. Mareykanka waxa kale uu sheegay in hubka noocan uu halis ku yahay ammaanka dalka Kenya, Ethiopia iyo Soomaaliya oo markii horeba sunan darro weyn ay ka jirtay. waxa uu Mareykanka shaaciyay in hubkan sharci darrada ah uu xadgudub ku yahay cunaqabataynta hubka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasoo oo saaran Soomaaliya. ganacsiga hubka sharci darrada ah ayaa sidoo kale loo arkaa mid wiiqaysa guulihii laga gaaray hoos u dhacay weerarada ka imaan jiray kooxaha burcadbadeedka. Soomaaliya ayaa leh xeebta ugu dheer qaaradda Afrika. amniga xuduudaheeda badda ayaa ah kuwo aan sugnayn iyadoo dalka uu ka socdo dagaalo ka dhan ah ururka al-Shabaab. waxaana xusid mudan in hubka sharci darrada ah oo ka yimaada dalka Yemen inta badan laga soo geliyo dhanka xeebaha. sidoo kale dowladda Mareykanka ayaa shaacisay in ururka al-Shabaab ay damacsan yihiin weeraro ay ka geystaan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in weeraro argagixis ah ay ka dhici karaan goobaha ay u dalxiis tagaan ajaanibta, hoteelada, suuqyada iyo baraha ay isugu yimaadaan bulshada. qoraalka ayaa looga codsaday muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan magaalada Nairobi inay muujiyaan feejignaan. dalka Kenya ayaa waxa ka dhaca weeraro dhowr ah oo mas'uuliyadooda ay sheegtaan kooxda al-Shabaab, waxaana kooxda ay hore u shaacisay inaysan joojin doonin weerarka ay ka geysato dalka Kenya ilaa xukuumadda Nairobi ee ciidamadeeda kala baxayso dalka Soomaaliya. waxaan naga daawanaysaan wargeyska Maalinlaha Jubba. aniga iyo bahda wargeyska Maalinlaha Jubba waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.